meel kastoo aad dunida daafaheeda ka joogtaan waxaan idin rajaynayaa nabad qab iyo caafimaad qof walbana waxa uu jecel yahay alla weyne subxaanahu watacaala ha uu fududeeya adduuniya aakhiraba runtii haddii ay tahay qofkaaga ay daawanaya adigaaga ay daawanaya aad gabadhaha wiilahaw markii kugu horreysay ee aad soo booqato channelkan Hillaac Soul waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad subscribe-ta dhac ku siiso isla markaana like-ta nagu dhiirigeliso gambaleelkana aad furato sidii aad muuqato qofka ugu horeeya ee daawada muuqaalada aan soo gelino bartan isla markaana wixii fakar ah aad nagula wadaagto commentiga runtii fiidiyoga ka horeeyay waxaanu ka soo hadalnay beesha Saciid Harti ama dhulbahanta sida looba yaqaanaba abtirsiimihiisa ayaanu ka soo hadalnay anagoo carabaabnay in aanan ku dari karin wax taariikh oo ay leeyihiin isla markaa maxaa yeelay beeshu waa beel aad u facweyn waana beel taariikhdeedu aad u weyn tahay oo hal fiidiyo iyo 2 iyo 3 midna aan lagu soo koobi karin saasay tahayna waxaan rabnaa taariikhdeeda qayb yar oo kamid ah in aanu soo qaadano anagoo qayb u sameynayna oo fiidiyoyada kala ka soo hadlayna runtii beesha saad ogtihiinba taariikhdeedu waa taariikh aad u weyn cajab iyo cadaan intaba buugaag ayay ka qoreen oo history ah Soomaaliya waxaa lagu dhigaa taariikhda beeshaasi qaab history ahaan iskuulaadka waa looga dhigaa qaybo kale oo caalamka kamid ah sida Ingiriiska oo kale adaa iskuulaadkooda primary-ga ah ee hoose dhexe taariikhdooda waa ay ku jirtaa beesha Saciid Harti caalamka marka Soomaali la soo hadal qaado waxa lagu garto ee lagu yaqaan waa beesha dhulbahante ama beesha daraawiisheed marka waxaan rabnaa in yar oo kamid ah taariikhda beesha Saciid Harti ama dhulbahante inaan yara carab baabno adoo Allah awooda leh suura galiyo biidnillah beelweynta dhulbahante waa beesha Soomaaliya ugu deegaanada badan xaqiiqatan waa beesha Soomaaliya ugu deegaanada badan macnaha marka Soomaaliya inteeda kala la eego waa beesha ugu deegaanada badan oo waxa ay deegaano aad u fara badan waqooyiga Soomaaliya kale waxay ka degaan 3 gobol gobolka Sool Sanaag iyo Cayn bay ka degaan waxay kala degaan Jubbooyinka gaar ahaan magaalada la yiraahdo Kismaayo halka ay Ethiopia ka degaan deegaanada Soonaha Doolow gaar ahaan Booqdoor iyo Wardheer waxay kala degaan qaybo kamid ah Kenya gaar ahaan waqooyi bari waana beelweynta soo dhaweysay dhammaan halgamadii Soomaaliya isla markaana u hurtay wax walba oo tayo leh beesha dhulbahante saad u taqaanaanba waa beesha soo dhaweysay dhammaan halgamadii lala galay Ingiriiska hadday ahaan lahayd ciidamadii huwanta ahayd hadday ahaan lahayd xabashidii hadday ahaan lahayd waana beesha ka dhidhiisay oo diiday xadgudubkii xabashida una hurtay naf iyo maalba beeshu waxay kamid tahay ama kamid ahayd halgankii iyo xadgudubkii xabashida ee Soomaaliyeed sida uu tilmaamayo buugga la yiraahdo Fathul Xabash buuggaas oo uu qoray nin Carab ah oo la oran jiray Al-Gayzani wuxuu kaloo tilmaamayaa buuggaasi xoogii ugu awooda weynaa ee diiday isla markaana ka hortagay xadgudubkii xabashida inuu ahaa beesha dhulbahante ama Saciid Harti caalamkuna uu qirayo Soomaali quwadda ay ku taagan tahay inay tahay beesha dhulbahante ilaa haddana ay aaminsan yihiin quwad kaliya maaha macal siyaasad beeshu waxay kaloo leedahay taariikh xadiida oo cid ka been sheegi karta ama dafiri karta aysan jirin waxa uu kaloo buugaasu qoray beeshu inay tahay maskaxda ummadda Soomaaliyeed xag siyaasadeed iyo xag awoodeedba waxaan rabaa taariikh yar uu ka sheekeeyay ama qoray nin suldaan ahaa oo habar yoonis ahaa in aan idinla yara wadaago hadduu Allah awooda la suura geliyo ninkaasi wuxuu qoray taariikhdiisa qayb kamid ah ayaan soo goostay waxa uu yiri awooda iyo hanka ay lahaayeen beeshaas dhulbahante
gabadha anaga aanu dhalnay haddaanu nahay iidoor hadday fool xun tahay ee gabdhaha kaloo dhan ka fool xun tahay balse ay isir ku leedahay beesha dhulbahante waxay gabdhaha kale dheeraan jirtay 20 halaad. bal halkaa u fiirso, waa gabadhoodii balse maxay isir ku leedahay beesha dhulbahante. markaa maxay dheeraan jirtay buu yidhi 20 halaad ayay dheeraan jirtay. markaa berigaana dhulbahanta wuxuu u kala degi jiray hawd iyo nugaal. sheekadiisii buu sii watay. markaa wuxuu yidhi buur indhax xabajo la yidhaah ayay galeen dhulbahante qayb ka mid a. geel ayay kasoo dhaceen gaaraya 325 halaad. waxay kalooy martaa ku dileen 12 rag ah. kadib waxaa u yimi rag erga ah oo iidoora ayaa u yimi magaalada Caynaba. habeen iyo 2 markay joogeen ayaa la isku sheegay. kadib ayaa la qaabilay oo geedkii shirkaa la keenay. maxaad ahaydeen ayaa lagu yiri. waxay yiraahdeen waxaanu nahay reerihii aad maalintii dhaweed gasheen. waxaanu nahay reerihii aad maalintii dhaweed gasheen ee geel waxaad naga soo qaadeen tiradiisa ma haysaan. waanu haynaayo wuxuu ahaa 325 halaad. ragna wixii aad meesha kusoo layseen ma haysaan. waanu haynaayo waxay ahaayeen 12 rag ah oo waxay qariyeen ma jirto. taasna waxay tilmaamaysaa kalsoonida ay isku qabaan. waxay ergadii Isaaq tiri anagu labadaba ergo kama nihin ee waxaad meesha kaga timaadeen inaydaan ku laaban ayaanu doonaynaa. waxaa loogu jawaabay ergadii waxaan wadanay ma arkayseen. wixii aanu wadanay ma arkayseen. markii aanu geela soo qaadanaynay wixii aanu wadanay ma arkayseen. ayay ku yiraahdeen oo faras ayuu ahaa. haddaba faraskayagu inuu buuraha koro oo uu cidiya jabo uma ogolin balse wixii aan bariga ku aragno oo rag iyo xoolaba dhaafi meeno ee idinku buurta ha ka soo degina. ergadii markaa waa ay iska laabteen. markii lagu yiri anagu fardaha iyagu ma rabno inay cidiya jabaan oo buuraha kori maayaan balse wixii aan bariga ku aragno oo xoolo ah ama rag ah dhaafi mayno ee idinku waxaad samaysaan buurihiina ha ka soo degina. kadib waa ay tashteen oo waa iska laabteen. bal awooddaas ayay leedahay. marka halkaas wuxuu odaygaas ka sheekeynayaa odaygaas suldaankaas habar yoonis wuxuu ka sheekeynayaa qaabkii ay iidoor buurta uga soo degeen. ayuu ka sheekeynayaa. waxa uu kaloo tilmaamayaa dhulbahanta inay yihiin dad soo dhaweeya qofka qaba gabadhooda oo qof dad han weyn ah oo ay yiraahdaan qofka ay abtigu yihiin oo kale gabadheeni baa dhashay soo dhawow ay soo dhaweeyaan ay soo dajiyaan. waxay markaa bilaabeen oo ninka habar jecel buugiisa uu ku qoray oo ninka habar yoonis ee suldaanka sheekooyinkiisa kamid ahaa war aanu guursano gabdhaha dhulbahante aanu guursano kuwooda ee iyagu ka qashaafaan ee foosho xun ee midhmidhka ah ee ku jira aanu ka guursano yaradna aanu ka bixino. kolley dhulbahanta anagu gabdhahayaga ma rabo oo guursan maayo balse haddii ay dhacdo in nin dhulbahanta uu gabadh naga guursadana aanu isaga yarad siino oo aanu xoolo ugu darno. waxaa dhici doonta gabdhahaasi ragga ay dhalaan labada gabdhood ee la guursaday ragga ay dhalaan in ay dhulbahanta dhulka u soo dajiyaan oo ay yiraahdaan gabdhaheenii baa dhalay midna anaga dhalnay midna gabdhaheenii baa dhalay ee soo dajiya. sidaas ayay ku soo degeen iidoor buurihii uga soo degeen. inkastoo ilaa maanta uu dhulbahanta maskaxda ka haysto oo u fadhiyo baarlamaanka oo siyaasadan iyo maamulkan ay isku maamulayaan intaba uu u dhiso ama u nidaamiyo dhulbahante. runtii taariikhuhu waa ay fara badan yihiin waana sii socon doonaan hadduu alla awoodda leydmo waana farabadin doonaa waana kasoo warrami doonaa hadduu alla awoodda leydmo insha allah biidni illahi alkariim. haddana intaasaan kusoo koobayaa inkastoo taariikhuhu ay fara badan yihiin waana soo badin doonaa insha allah. fiidiyooyada dambe la socda hadduu alla awoodda leydmo sidaa iyo nabadgeliyo.